Assalaamu calaykum asxaabta. Ku soo dhawaada channelka Aragtida Maanta. Qaybtan waa qaybta labaad ee filimka magaciisu ahaa Finishing Time ee Boyhood Returned. Fadlan daawade, waxaan kaa codsanayaa in aad soo daawatid qaybta koobaad ee filimka si ay isugu kaa xirmaan oo aad u fahantid. Mahadsanid. Ka bogasho wacan. qaybtii koobaad waxay noo marisay kadib markuu waqtigu istaagay dhowrkii maalmeed ee ugu horeysay saddexdii wiil ee saaxiibada ahaa waxay ku jireen farxad iyo damaashaad aad u sareeya. waxayna cunayeen oo cabayeen wax allaala waxa ay rabaan. waxay seexanayeen mar allaala marka ay doonaan. waxayna ku ciyaarayeen hareeraha magaalada maalinta oo dhan. bilyo xoogaa kadib way caajiseen, markaas waxay go'aansadeen in ay isaga tagaan jasiiradda oo ay aadaan magaalo kale si ay u soo eegaan inay dhab ahaantii yihiin dadka kaliya ee dhulka ku dul nool ee dhaqdhaqaaqi kara. Si kastaba ha ahaatee, qorshahooda ayaa xumaaday kadib markii ay ogaadeen in biyaha badda sidoo kale ay joojiyeen qulqulkii, taas oo ka dhigan in doonta ay degi doonto. dhanka kale, Suurin waxay garwaaqsatay in ninkii u soo dhawaaday ee ay keenta ku aragtay uu ahaa Sangemin. waxay joojisay akhriskii iyadoo isku dayeysay in ay booliska ka fogeyso Sangemin. haddii ay helaan waxaa hubaal ah inay xiri doonaan, iyagoo u malaynaya in uu yahay afduubihii. sidaas darteed waxay ku andacoonaysaa in ay ka been sheegtay in ay cid ku aragtay keynta dhexdeeda, balse boolisku sheekadeedii way rumaysan waayeen, iyana waxay iska sii wadatay akhrinta qoraalkeeda. bilo badan kadib, wiilashii waxay bilaabeen in ay ku noolaadaan teendho ku dhex taalla suuqa. dhanka kale, caafimaadka saaxiibkood Jiwook ayaa kasii daraya maalinba maalinta ka dambeysa, sababtoo ah wuxuu qabay cudurka neefta, iyadoo daawadii neeftuna ay waxba ka tari weyday. habeenada ka mid ah ayaa neeftu qabatay, wuxuuna ku horgeeriyooday saaxiibadiis. Sangemin iyo Tishik aad bay u niyad jabeen, waxayna meydka saaxiibkood ku aaseen meel u dhow xeebta. 5 sano ayaa ka soo wareegtay markii waqtigu istaagay, laakiin dunidu weli waa sideedii hore. raggu hadda waxay noqdeen dhalinyaro, inkastoo ay muddo badan ku noolaayeen go'doon, haddana waxay rajeynayaan in mar uun ay dunidu ku soo noqon doonto sideedii hore. Sangemin wuxuu aaminsan yahay in marka ay ku laabtaan jasiiradda uu waqtigu dib u bilaami doono, waxayna dadka oo dhan ka xadeeyeen lacag si ay taajir u noqdaan marka noloshu dib u bilaabato. si kastaba ha ahaatee, xitaa markay ku laabteen jasiiraddii waxba isma bedelin, waxayna si tartiib ah u lumiyeen farxaddii oo waa ay niyad jabeen. waxayna bilaabeen in ay ku noolaadaan gurigii alwaaxda ka samaysnaa ee keynta ku dhex yaalay. maalin maalmaha ka mid ah, Sangemin ayaa aad u qayliyey, isagoo ku qaylinaya in wax walba ay sidoodii hore ku soo laaban doonaan. Tishik ayaa isna meel fog ka eegaya, isagoo aad u rajo dhigay. maalmo kadib, Sangemin wuxuu ogaaday in qaabka dayaxu uu isbedelayo, taasoo la macno ah in dunidu ay dib u bilaabanayso. waqti yar kadib, waxaa kala lumay labadii saaxiibada ahaa ee Sangemin iyo Tishik, laakiin Tishik ayaa aad u raadiyay saaxiibkii, balse ma uusan helin. waxa uu ka raadiyay jasiiradda oo dhan. aakhirkiina wuxuu gaaray meesha ay jasiiraddu ku dhammaato, isagoo halkaas ka helay dharka saaxiibkiis Tishik, wuxuuna garwaaqsaday in saaxiibkiis uu ku booday biyaha oo uu isdilay. Sangemin ayaa sidoo kale ka daba booday saaxiibkiis Tishik, balse dunida ayaa dib u bilaabatay. waxa uu ka soo baxay biyihii. dhanka kale, Suurin kadib markay akhrisay joornaalka, waxay u carartay gurigii alwaaxda ahaa ee keynta ku yaalay, waxayna ugu dambeyntii ku aragtay saaxiibkeed oo ay halkaa kula kulantay. waxay go'aansadeen in sheekada u sheegaan adduunka, laakiin ma hubaan inuu qof rumaysan doono. dhanka kale, muuqaalka CCTV booliska ayaa muujinaya in Sangemin uu ku dhex sugan yahay keynta, waxayna aaminsan yihiin in uu yahay afduubaha. waalidiinta Tishik ayaa aaminsan in wiilkooda uu ku dhintay qarax ka dhacay goobta, sidaasna ay eedda u qaadanayo Dhukin. Suurin ayaa sameynaysa sheekooyin ay ku badbaadinayso aabaheed. dhanka kale, Suurin iyo Sangemin waxay aadeen xarunta agoomaha ee uu Sangemin joogi jiray. Suurin ayaa wax walba u sharaxaysa maamulaha, iyadoo dibadda u soo baxday si ay u wacdo Sangemin. hase ahaatee, aabaheed ayaa jiiday, isla markaana qol ku soo xidhay. Sangemin waxa uu u tegay barbaariyaha carruurta oo hooyadiis oo kale ah, isagoo u sheegay wax kasta uu samayn jiray yaraantiisii. way ka naxday hadalkiisa, laakiin weli ma aysan rumaysan. Dhukin ayaa Suurin ku xiray qolkeeda habeenkaas, laakiin Sangemin ayaa ka soo galay albaabka dambe, wayna baxsadeen. waxayna ku carareen gaari iyagoo go'aansanaya waxa ay samayn lahaayeen marka xigta. Suurin ayaa soo xasuusatay in ay godka ku aragtay ukun labaad, waxayna u soo jeedisay in ay isticmaasho ukuntaas si ay u noqoto qof weyn oo ay caddayso in Sangemin uusan waxba galabsan. si kastaba ha ahaatee, Sangemin wuxuu ka soo horjeestay fikraddeeda, sababtoo ah wuxuu og yahay
sida ay u adag tahay in lagu noolaado go'doon. Wuxuu ka jecel yahay in loo qaato afduubaha intuu u ogolaan lahaa saaxiibtiis in ay soo marto noloshii oo soo maray oo kale. Lukiin ayaa arkay in gabadhiisii ay maqan tahay, wuxuuna ogaaday in ay tagtay guriga alwaaxda ka samaysan ee keynta ku yaala. Kadib markuu arkay sawirka iyadii Sankimin oo taleefankeeda ku jira. Habeenkii ayuu halkaas tegay, wuxuuna weeraray Sankimin, wuxuuna isku dayay inuu Suurin ku soo celiyo guriga, laakiin Sankimin ayaa wax ku dhuftay, wayna ka wada carareen. Maalintii xigtay, boolisku waxay baareen gurigii alwaaxda ka samaysnaa, waxayna rumaysan yihiin in afduubuhu uu wax isdaba marinayo, isagoo Suurin ka dhigaya in ay rumaysato inuu yahay Sankimin. Warka ku saabsan waayitaanka Suurin ayaa ku jira TV-ga si booliska ay isla markiiba u helaan labadoodaba. Baacsi ayaa dhex maray isaga iyo booliska, kadibna waxa ay soo dhiibtay Suurin si ay u badbaadiso saaxiibkeed Sankimin. Inta aysan kala tegin waxay ka codsatay in uu godka kula kulmo. Dambi baare Han waxa uu isku dayay in uu Suurin fahansiiyo in afduubuhu uu been u sheegayo, balse way rumaysan weyday. Waxay cudurdaar ka dhigatay inay rabto inay musqusha gasho, waxayna u carartay dhanka godka. Ukuntii dhalaalisay ayay la soo baxday oo u dhiibtay Sankimin, laakiin wuu diiday in uu soo celiyo sababtoo ah ma rabo in ay isticmaasho. Wuxuu qarka u saaran yahay in uu isoo dhiibo oo uu qaado eedda dilka saaxiibkiis, wuxuuna u cararay dhanka keynta. Isla markaana booliskii ayaa ka daba yimid, waxayna istaageen qarka buur dheer. Sarkaalka ayaa isku dayay inuu qabto Sankimin, balse labadoodiba waxa ay ka dhaceen buurta. Baaraha ayaa isku dayay inuu caawiyo Suurin, laakiin labadooduba waxay ka laalaadsameen qarka buurta. Sankimin ayaa isku dayay inuu badbaadiyo. Intaas kadib Sankimin ayaa mar kale jabinaya ukuntii oo waqtiga ayaa sidaas ku joogsanaya. Marka Suurin ay kacdo dhowr ilbiriqsi kadib, waxay joogtaa meel xeeb ah iyadoo uu la socdo baaraha. Ayay hadda tahay in uu qaato muddo 10 sano ah maadaama uu waqtigu joogsaday kadib markuu ukunta jabiyay. Intaas kadib Suurin ayaa guriga lagu soo celiyay. Inta ay casheynaysay ayay aabaheed ka raali gelisay wax kasta oo ay samaysay. Waxay markeedii ugu horeysay ku tiri aabe, isna aad ayuu ugu farxay. Intaas kadib waxa uu yimid baarihii si uu su'aalo uga weydiiyo siday uga badbaaday buurtii ay ka dhacday, balse Suurin kama aysan jawaabin su'aalaha baaraha. Intaas kadib waxa uu ogaaday in ay run sheegayso. Isla waqtigaas wuxuu u soo jeediyay inay hadal been abuur ah siiso warbaahinta oo ay tiraahdo afduubaha ayaa ku gacan sayray oo aan ka soo baxsaday. Intaas kadib Suurin ayaa dhamaysay waraysigii ay la yeelanaysay dhakhtarkii dhimirka. Intaas kadib dhakhtaradii ayaa yaabtay oo waxay damacday in ay buug ka qorto sheegada gabadhan yar. Dhowr bilood kadib Suurin waxay u guuraysaa magaalo kale, halkaas ayayna ka bilaabaysaa dugsi sare. Ka hor inta aysan ka tagin magaalada, waxay la kulantay dhakhtarkii dhimirka iyadoo siinaysa buug qisadeeda laga qoray. Intii ay u sii socotay magaalada kale, Suurin ayaa Sankimin ka aragtay daaqadda gaadhigeeda, waxayna u orday dhinaciisa si ay ula kulanto, laakiin waa ay weyday. Ugu dambeyntii muddo kadib, labadoodu waxay ku kulmeen markab dushiisa. Daawadayaasha sharafta badan, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Fadlan daawade channelka subscribe saaro, like tii share kana ha naga ilaawin. Mahadsanid.